بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal halkan waxaanu kula kulannay Caydaruus Xuseen Sahal oo ah afayeenka xisbiga kulmiye ee magaalada Shafiil oo dalkii hooyo u sii kictimaya berri oo Arbaco ah. Caydaruus waxaanu ka weydiinay ujeedada socdaalkiisa iminka uu daaran yahay maadaama dalkii ay ka jirto xiisad siyaasadeed. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياسين المهتسنتهاي thank you very much. كل maxay tisaad sheegtay wadanka ayaan kusii jeedaa kulley safarkaygaas wuxuu daaran yahay arrimo dhowr ah mid private ah iyo mid qaranba waan magaranaysaa waan qorshahaygu waa yahay marka ugu horeysa kulley waxaan ka kicitamaya Brito insha Allah bisha 13keeda Dubai ayaan sii marayaa adigu aan week iyo adigu ilaa laba week sii joogi doona insha Allah kadibna wadankii ayaan qabanaya insha Allah taala oo aan doonaya inaan maxay tahay arrimo dhowr ah oo safarkayga ujeedadiisu ay yahay aan doonaya inaan magaranaysaa soo dhameeyo marka ugu horeysa kulay iska private family iyo hooyo baa jooga xagaas secondly waxa weeyaan arrimahan wadanka ma ka soconaya diiwaan gelinta ayaa kulay qodaydu aan doonaya inaan door ka qaato maadaama ay tahay maxay tahay arrin qaran oo u baahan in dadka la wacyi geliyo oo siyaabo badan loo wacyi geliyo kulay kuwii hore ima suurto gelin wadanka diiwaan gelin baa ka dhacday marka ima suurto gelin maxay tahay inaan kuwii hore ka qayb qaato marka insha Allah taala waxaan doonayaa inaan gobolka Sanaag inaan ka gaaro ayaan isku taxalujinaya inaan ka gaaro iyo kharsan Sool iyo dabcan degmooyinka Buuxodle iyo Qurlugud iyo degmooyinka kala kharsanba inaan wixii aan taray hore ee wacyi gelina inaan ka qayb qaato iyo dabcan arrintii xisbiga oo mas'uuliyiinta xisbigana aan doonayno soo aragno dardargelinta xisbiga iyo arrimaha doorashooyinka waxyaabahaasba aan doonayno insha Allah inaan ka wada hadalno marka yaasin kuleydii qorshaha iska fara badan yahay laakiin taas aan kusoo koobi doono insha Allah taala iyo kule arrimihii kala bariyay imika 2 sanadood wadankii waan ka soo sokeeyay arrimihii ictiraaf raadinta waanu kulay ka qayb qaadanay 2014kii Sheffield magaalada Sheffield magaalada ugu horeysay laga ictiraafay Somaliland wanagi wafti xagaa ku tagnay kulli imika waa la sameeyay guddi ictiraaf raadin oo wadankan UK kuwaas wada shaqeyn naga dhaxayso qudheedu maxay tahay ayaanu kulli waxyaabihii adigu ictiraaf raadintana kama marna insha Allah taala safar dad badan oo experience oo طبعا kuba jira hawlaha xagga wacyi gelinta laakiin waxaan ku dhaamo insha Allah taala waxaan doonayaa qodayda inaan ka qayb qaato because waa arrin qaran weeyaan waa arrin aad iyo aad inoogu muhiim ah shacabka reer Somaliland iyo qaranimadiisaba ahmiyad weyn u leh ragga iminka ku jira wacyi gelinta diiwaan gelinta iyo dadka gobolada Sool iyo Sanaag maxaad leedahay yani kelmadaada ku aadan inay isdiiwaan geliyaan kulli kelmadeedu waa waxa weeyaan kelmadda markasta aynu ku soo celcelino ama haday tahay mas'uuliyiin iyo haday tahay shacabba lagu soo celceliyo oo ah waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo ah in laga qayb qaato diiwaan gelintu waxa weeyaan arrin rasmi ah qofku inuu isdiiwaan geliyo uu voter register noqdo waa muhiim weeyaan sidoo codkiisa maxay tahay uu ugu xaqiisa codkiisa aan u waayin waa muhiim si ma garanaysaa loo helo ma garanaysaa cid uu doonayo qofku iyo waxa aaminsanaa maxay tahay si aanu xaqa u waayin waa arrin muhiim ah inuu qofku register garayo shacabkana waa iyo wadankaba waa muhiim oo dawlad baynu nahay dawladdu waa inay register shacabku register garayo oo voter qofku xaq buu leeyahay qofku xaqna uu leeyahay in la doorto inuu wax doortona xaq buu leeyahay marka taas way muhiimad ay leedahay in la iskareeyo oo la isdiiwaan geliyo
ayaa dadka ku boorinaya waana arrin muhiima. Thank you.